Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii duurjoogta. Barnaamijkeenan duurjoogta waxaynu ku soo qaadanaynaa waa qaybtii afraad ee Saabi webiga la yidhaahdo ee dalka South Africa iyo weliba baaga weyn ama meesha lagu xanaaneeyo ee ugu weyn dalka South Africa ee la yidhaahdo Kruger National Park. Barnaamijkeenan waxaynu ku soo qaadan doonaa colaadda ka dhaxaysa libaaxa iyo weliba harimcadka. Harimcadka iyo libaaxa waxaa ka dhaxeeya dagaal soo jireena. Midba midka kale waxa uu gaadaa inuu ka laayo dhallaanka. Dhallaanka marka hore waxa imaka hujuumay oo laayay waxa weeyaan goosha. Gooshu markii ay dhallaanka harimcadka laysay, harimcadkii waxa uu soo istaagay keligii, isna waxa uu ku dhaqaaqay inuu laayo cagabaruuradii ay dhashay gooshani. Gooshu ama libaaxyadu inta badan dhallaankooga waxay kaga tagaan meel waana ugaarsi tagaan. Inta ay ugaarsanayaan ayay u soo weydaartaan xayawaanada waraabaha iyo harimcadku ka mid yahay dagaalku ka dhaxeeyo. Markani waxa soo weydaartay harimcadkii horey looga laayay dhallaankiisa, waxaanu qaatay mid ka mid ah dhallaanka isagoo oo weliba mid kalena halkaasi ku soo dilay. Waxaanu isla markiiba la fuulay geedkan inta badan ma fuulo libaaxu mana fuuli karo. Gooshu way ka soo noqotay ugaarsigii waxaanay u qayliyeysaa dhallaankeedii. Cod u gaar ah ayay ugu yeedhaysaa oo ay ku soo baxayaan, balse ilaa hadda ma hayso raadkoodii. Harimcadku ma dilin cagabaruurkan, weli wuu hayaa, naftaanu ku sii hayaa. Waxaanu sugayaa inta ay ka imanayso gooshu. Wuu ka takhallusay cagabaruurkii, waxaanu weliba ka soo tuuray geedka harimcadku. Gooshii way fuushay siday isugu dayeysay inay fuusho geedka, balse culayskeeda awgeed ayay laantii la soo jabtay iyadiyo cagabaruurkeedii oo weliba miida.
halkani waxaa isku haleelay waa harimacad iyo weliba raxan libaaxyo ah, kuwaasi oo hareereeyey harimacadkan doonayeen inay halkaasi ku dilaan. kooxdana waa koox kale oo iyaguna helay harimacad, kuwaasi oo ka kooban gooloq iyo weliba 2 aar. labadan aar oo soo galeyti ah oo dhulkani aan lahayn oo ka eriyey aarkii meeshan uu kumayey ayaa waxaa ka soo horjeeda goolaha qaar ka mid ah. iyaga laftigooga ayaana difaacaya isla harimacadkii, taasi oo midba oo mid qaadayo. barnaamijkeennii halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa, waana qaybteennii ugu dambeysay ee Kruger National Park. tan iyo intaynu barnaamij kan la mid ah ama taxana ah ku kulmi doono, waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo.